way ku soo direen waragas ogtiin waxa dhacday laba video baa la soo diray dadkan meesha joogay maxay ahadanay laba jir maahan dad maraaninna maahan waxa dhacday laba video baa la soo diray oo shalay afka ka qiratay marka dad is og baatiin wiilal ilmaadeerada ayaa gabadhaan soo farxumay daahirna horta shaqadiisu wata anagana wiilka dhalinyarada u baqmayna foostana lagu soo riixi waayay sala iskaga riixay loogu kaadiyo foostana waanu naqaanaa maxay ahadanay wax dhibaato oo wiilka loo geysan karana ma lahan waa ninka doobinaya hadda iska joogay Addis Ababa ragii dhalinyarada ahaa ilmaadeerka haydeen daaroodkii baashan maxay ahadanay aad ka soo qaaday videoda ku soo diray ilmaadeerada hadda videoga adiga lagu soo diray way anagana lagu soo diri waayay way dadka kale u arki waayeen wadada istaqaanaan soma waa niman dhalinyaro ilmaadeertiin marka gabadhan waxa hadda dhibaatada u geystay waa ilmaadeerada adun baana keenay marka sheega ma dhaafta la raada baashan mug anaguna maxay ahaydeen qabiil iska yar oo fuusta lagu soo riixi kara manin fuustada waana ku kaadeynaa waana sii haraantinayna moogtahay marka muxuu ahaa maxay ahaydeen Ali Cadaaw maadaama adigu reerka aad si fiican u taqaanin maxay ahayd teamkaas oo dhahday waana ku dhex jiri jiray Cabdi Kaaso iyo team maxay ahayd Kaatuuse barigo dhintay maxay ku soo iyad maalmahan marka nin si fiican u yaqaan oo ku xeel dheer oo raggaan saaxiib yihiin oo wax dhibaatayaan ma anagu baasha sheekada way ku weyn tafiri sheekada horta in aad sida ciyaar in u sheekeyna lama rabo wiilka arrintiisa hadda gacantiisa ku fiifanikaaneo no daahir cali soo gacantiisa kula jira idinku maxaad wiilka ugu qafiifteen marka maya daahir cali soo wuxuu taagan yahay wiilka xogtiisii oo dhan iyo dukumiintigiisii iyo sharcigiisii iyo siyaabihi loogu xiray gibilay ama hargeyso ama burcaha noqotay ama may daahir waa mid baa ku dhacay daahir shaqadiisa kuma haysan daahir wuxuu yiri aniga shaqadii gacantan ku haya aniga meel walba karo aniga dhageyso aniga meel walba karo waxaan aaminsanahay adaawa kanada u degan yahay fiiri adaawa kanada u degan yahay ninka kiiska gacanta ku haya waa daahir cali soo waxaan aaminsanahay daahir Cabdalla cali soo nin dhalinyaro oo Samaroona oo meesha joogay inuusan afreynin una been ka sheegin hadduu waxyeelana sida caad oo keenayaan aaminsanahay baashan isla faano ninka daahir shaqadiisa anagu ma badiidaninba waxaan ognahay aaladda ninka looga dambeeyo loo doo fadhiistay inuu yahay nin journalist oo adigana waxaa isku daydaa in adeerka inaad seefgareynin dad kaletana aad ceebeynooda dhihin qabiilkaasa waxaa siibiyeen adeerka first of all حقيقة ليش سو أنا قاعد وسخين ده إن هذا كان بدادين أنا قاعد وسخين واحد كبر ما أبى دملا الله يا 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 أيوة يا مسؤول anagu daahir Cabdalla cali soo waxaan ognahay maadaama reer Samaroona nin maxay ahadanay meeshan jooga aaladan looga dambeeyo maxay ahadanay boqorka urus Soomaaliyeed inuu yahay waxa soo dhan anagu waan ogsoonahay maxay ligintiisana waan qarsanahay waxaan ognahay inuu nin dhalinyaro oo Samaroona oo bartaa jooga inuusan foosta ku soo riixayn laakiin foostadaan maxay social media soo shaqaysan waan naqaanaa ninkan adeerkay daahir maxay ahadanay hawshiisa waa wadanaya anagoon uma diidanin anagana xitaa kala shaqaynayna laakiinse raggii gabadhan dhibaateeyay maxay ahadanay Nairobi ka soo borsaday gabadhan maxay ahayd Ali Cadaaw isagu sidoo sheegay waxa la yidhi qofka bilaadanka afkiisa lagu xukumiyaa raggii u soo diray nimanka ilmaadeeradiya daarood baa la keenayaa meesha anagu foosadaas lagu riixi maayo waan iska riixaynaa أطفال سمونا. أنا قرعلو. كم هذا كرا. ما كي سهر لك. وأودي بقى إلى ربشك إيكا. هرت إلى روسيني صاد لك لك. فيري. meeshan arinta taala hadda waa gabadha meesha ay joogto dhibaatada ay tabanaysa Gurceelow gabadhan waxa ay Soomaali almost 70 kuna oo shalay ay arkayeen ilaa maanta aan arkayno wiilkan walaalkeeya hadayna qabyaalad wadin oo waxa weeye qabyaaladu waa qurun laakiin la fahin naga gashay bal fiiri wuxuu ka hadlay gabadhan rag bay ka soo carartay wareedkama FBI baatay ninkan gabadhan haysta ee xoog ku haysta yaa u dirsaday gabadhan banaanka muu ka maro
gabadhan annaga way noo imaaday wayna la hadashay waynu ka warhaynaa annaga naqaana walaalow idinka yaa idinka dhigay inaad mas'uul u noqotaan ood ilaalisaan waxbaa Kenya looga soo sameeyay way soo carf iska ilow this is Ethiopia hadda joognaa annaga hadda ku leh gurcaalow la xiriira dawladda muhiimadda waxay tahay kiiskan ka hadal inaadeer ayso فوقر بعض وحي هوري أولد ولا سيد هذا الكسير يسار دقيقة ور هذا الكيا هذا البول investigation كظاهر كما يستوى كداي هذه هو هذا القبيل دودين يكمل دباسة لور يحوان نقانا أي دقيقة فوستوي لور يحوان نقانا على ده روح نشوفني على ده اللي حصل ربي هذا الولا وهذا فوستوى هذا الكيهور بالجرادو هالمر هذا الكيسية هرت قبر دبعتي سنة لكاني مو ديقل قبر دبعتي سنة لكاني برعيلو قبر دا إذا كهل اللي هالدبعتي دي قبر دا ماشي عرف دور لو مكين وقولك داير على سوكو قبر دا نين مرة دينين قبر دا إني دبعتي دي كهاش نينكن سوق بودي دا قبر دا أنا قرسنة ماشي عرف دور ميا اللي لو راديني قبر دا مسنين با لو راديني تاس إنا كهذا شين با مهم المقادير نمو ماشي مطالب wiilkan intuu soo ordo muxuu u daboolayaa hadalka iyo gabadha hadalka dhahaysay ana guursanay oo la hor cararayo meesha macalaf doon bay ahayd qolka waa maya sababtu uu la hor cararay ana guursanaya ana niga soo doonanaya yaa dhahay soo doonan marka hore muxuu u doonan waayay hadduu wax guursanayo oo gabadhaas rabay marka hore muxuu reerkeed uga doonan waayay taas ka hadla wiilka wuxuu cararay waxbuu qarnay hadda ilma adeerayaal wax cad baa meesha yaalay maxaa isku dabooleysiin قبيل انت اللي تجوجي حقك كهذلا سيدا وحسينا بشكر سينا سيدا السلام داير على سوق علي دمانتين ني هورتا arrinta si aqriyaysan markii lagu eego oo xitaa gabadha baadi language-keeda markii la eego qof walba oo wax fahmi kara wuxuu dareemayaa gabadha inay tahay baadi language-keeda geesahay eegaysaa hadalka kama soo baxayo ilmaa ku soo istaagaysaa gabadhan waa gabar dhaqan weeye oo every second ay hadalka dhahaysa loo soo qorayo gabadhana waa gabar walaasheena waa gabar Soomaaliyeed in la caawiyo weeye arrinta kale oo yarkaan tuunka gelinaysa waxa weeye oo ku cad ninkan hadduusan gabadha xoog ku haysan gabadha ninka ma qabo kuma mihirsana xiriir baa moogta adiga kala dhaxeeya gabadha xiriirka markuu kala dhaxeeyo banaanka kala jirtaa gabadha markay kugu meersan tahay waa dhihi kartaa gabadha waa marwadeeda looma soo dhawaan karo laakiin relationship gabadha kuma lahaan karto gabadha waa familkeeda ka doorataa ninkan marka dhahaya gabadha lama arki karo looma soo dhawaan karo lama soo agmari karo shalay 70 kun oo qof markii la yiri waliba hooyadeed mataqaana location-ka iyo mataqaana daahireen wada hadlay kadib ay location-ka diray gabadha guriga mataqaana uu gadaal ka bixiyay inaad iska cadaanin karo inuu gabadha madaxa inuu madax furasho u haysto waliba lacag shada lagu dhufto iyo lacag kale iyo moogta shilin kasto mataqaana gabadha soo galana ninkaas qaadanaya ninkan hadduu gabadha madax furasho ku haysan way uu gabadha isku dhigay سؤال اللي سويدي ويساوي كان قبل واي وقت ويل كسر رنت كهلا إن عذارك ما سمينا إن عذارك وسمينا ماشي متاجن ماشي واحد تاجن وحواي بقدر مرة قلت ده على سؤال كاني إن دلت ذيك هذا الشيء لكن ويل كأفتو قبنايا وبرسنيا غير كذا كدوننا يا إياك بحر حبي كذا مركا نين كان قبل فيش كبير بتشينيا قبل ميو نلا ميو قوا وامي gabadha hooyadeed ba raadinaysa familkeeda oo dhan ba raadinaya daahir la soo xariiray sababta uu guriga gadaal ooga bixinay waa maxay ninkani gabadha inaad qarasho ku haysaa sakaro shaki keenaysa waxa weeye waay uu ku dhaaya gabadha waxa ku wareejinaya reerkiga samaroon gabadha ma samaroon ba waa may gabadha waa shaashu weeye gabadha samaroon ma asaga samaroon sababta ku dhahayo anigu gabadha samaroon ku wareejiya inay rikaadi marba qabiil bood runta in la isku sheegayo walaalo دينا هذا الكلام وتيجي هذا الحاشا لله سمرون ما يسقط بحام حد يحكينا إلى هذا الكلام ما يعرف ما يستنيك أنا أي شيء يقول أنا أقول هذا القبيل مكان لما قبيل نقول ما إنه دي وحسن مكان لنا السعودية سمرون تهيا عدا مقابل شو ما أنا رأيت هذه دينا صح واي ما يكاد إلما الريال أنا قبيل وحماي منه
gabar Soomaaliyeed baa dhiban xilli qabiil ma taqaana ka sheekayna ma taagna gabadha sidii loo soo furqaamay laaba muhiima de ninka dhalinyarada shalay markuu tagay qol yar maxkamadda ugu qorantaa waa daawanayay wuxuu yiri gabadhii waa iga diyaar Samaroon oo kale ila wareeg gabadhu Samaroon baa waay sidee buu dhigi karaa Samaroon oo kale ila wareeg kaasi qabiil baa hadda soo qaadaysa Samaroon la yiraahdo hadii aan qabiil soo qaadano wuxuu yiri ma ka hadlaynaa de wuxuu yiri ma war gabadh ma jeerteena lagu wareejiyay wiilka maruu baad wuxuu yiri ma sheegayna inaa ilmuud galde haye ku saa wuxuu yiri ma ka sheekeynayna ilaa wuxuu afkiisa yiri baan anagu sheegayna anagu beena ka sameeyna asaga wuxuu yiri xidigta Jarmalka waliba waxay u gaday wiilal u gaday ila Samaroon gabadha kale ee laga wareega de Samaroon waxay dhahnay meesha ugu ceebayn Samaroon kale ee laga wareegay xidigta Jarmalka u gaday ee kadib iyo Hodan Cabdiraxmaan iyo Muftaqana fanaanada aad sharafta badan inaad yar marka gabadhan Samaroon ma aha waa gabar shaashiya ninkan gabadha ma qabo ninkan gabadha in laga soo badbaadiyay way Ethiopia markaan u experience 7 sano ku noolaa aniga aan sababo waa meeshan ka soo dhoofay wallahi billahi qabiil kama shaqeeyo ninka hadda istahay hebel qabiil ku difaaco Ethiopia laba shay ba kama shaqeeyo waa inaad ogaataa lacagna kama shaqeyso laaluuj askari inta lacagtiisa midii ka fikaa isoo waa qodob Ethiopia laaluuj kama shaqeeyo qabyaaladna kama shaqeyso Ethiopia system ba ka shaqeeya systemka Ethiopia waxa la dhahaa easy ba ku galaysaa had baa uga soo baxaysa Ethiopia system keeda easy ba inta ku gashay ay ku qabtaan bahad uga soo baxaysa alambaqa ba laga dhaadhicin waliga ma la madamay alambaqa wax meelo ugu xawey barka yarka dhalinyarada gabadha madax ku haysta systemka caalamkana waxa waa khatar weeye waa very danger weeye ninka gabadha laga soo badbaadiyo ninka dhahaya nin gabar Soomaaliyeed oo miskiin ah oo ku haysta oo wariya xataa banaanka aan u bixi karin oo markii la dhaho gabadha aan aragno dhahaya lama arki karo qabiil ninkii ku taageeray wallahi dabiil mare wareeda gabdho waa dhalnay wayna dhaleen wayna la dhasheen waan qabnaa gabadha miskiinka si Soomaalinimo ah loogu kaco lacag in la siiyo waxa ka horeysa nafteeda in la badbaadiyo lacag kasto maanta la siiyo asaga qaadanaya xalka dabadii kuma soo gashay waa faa'iido u qaba todobada ku jeeb ku sii galaysa gabadha ilaahay bilbil ka fiiraysa markii wax yar hadashaba qosol beero qosol gariir soo garaysa qosol gariir body language kala akhriya qofka moogta gabadha markii kelmad dhacdaba hadda soo gabagabay bashka soo gabagabay marka halka ko waxa weeye gabadhaas sidii mataqaana ay Ethiopia dawladda Ethiopia mataqaana ay uga soo badbaadin lahayd wiilka sharciga oo maray la Ethiopia sharciga ka jira gabadhaas sidii loo soo badbaadin lahayd oo meel safe ah loo geyn lahaa waalidkeedna loogu celin lahaa taasaa muhiim ah inaad ma garan دفعا عشان قبيلكو ابو قبيل متى انا Soomaaliyeed baa قبيل soo dhameysay hal mar aan yara hadlo ayna soo dhameeyaan waa soo dhameeyaan wani horta dad hadal hoos dhigaanadu ma nihin dad wax loo qariyo قرات سلوات انا salaam dad hadal loo qariyana ma nihin inaadeer waa ku siinayaa kala dhowrbe inaadeer Samaroon la yiraahdo iyo wiil naadeerkii laga hadlay waana siinayaa ninka dhalinyarada oo cilnaa waniga horta dad hadal hoos dhiga oo maxay ahayd wax loo qariyo maniin indhahay bilbil ka siineysay way cabsanaysay meesha lama baahna waniga gabadhaas masaakiinta ah inuu naqaano anigu si fiican ma naqaan adu ma taqaani hadda waxa laga yaabaa in hadal ku darsay 8 baa ku daawanaysa ka tahay gabadha masaakiinta ah rag baa soo rakaateeyay oo soo bursaday nin dhalinyaro ah oo is yaqaanaan baa soo dhaweeyay oo ku soo dhaweeyay Addis Ababa oo maxay heedanay dhabarka u saartay gabadhan hadda walaashana cud waxay dhahday wiilku muxuu dhahay waa gursana inaadeer gabadhu iyadu way faraxsanayd bilo game wax la yiraahdo ciyaarayay dadkan Nairobi markay joogtayna ilinta ka socoto waad u jeedeen in maxay ahayd gabadha la rakaateynay waad u jeedeen in gabadhan maxay heedanay ay ooynaysay oo fiido ooyna soo dhigaysay waad u jeedeen waxba dhii weyn rag rakaateynayna waad ka cabsanaysaan wiilka dhalinyarada ah ee soo dhaweeyay ee masaakiinka ah ee maxay heedanay hoo cuno cabdahay ee reerkiisii hadda inta meesha soo qabsadeen gabadh walaashiisa dhacday aad turteen maxaad ka rabtaan idinka maxaa idin dirsaday ayaa idin dirsaday wayna weydiisay su'aashaas reerkoodii baa og in wiilka dhalinyarada ah oo maxay heedanay gabadhaas maxay heedanay farxadeeda ka taliyay habees jeclaadaan waa wiil iyo gabadh haday doonaan ha isguursadaan waa wiil iyo gabadh jacaylkooda dhex gali mayno laakiin rag baa soo rakaateeyay oo iyadoo ooynayso ilintu ka socoto hadda tikid maxay TikTok-geeda way taalaa
nairobi markay joogto juuq maysan dhihi karin meel ay ku nafisi karsay tagtay nin dhalinyaro ah oo maxay ahadanay xataa cabsanaynin baa la soo galay lifekii anaa guursanay hadduu dhahay waa isagii raganimadiisa dee waa gabadh isagna waa wiil waa geeyaankiisa maxay ahadanay taas tu lagu mashquulaba maahan ninka dhalinyarada ah gabadhaas way faraxsaneed markay soo galaysay intaa bilo game bay ciyaaraysa game bay iska ciyaarayeen life ay soo wada galeen inaad taas anaga fuusto wax lagu riixo mana u jeedno way indhahay bilbil ka siinaysa iyo kor bay fiirinaysa waxaas wax rag waaweyn oo la yimaada ma waa taqaanaan baasha meesha ay ka caddahay raggii dhalinyarada ahaa ee gabadhan soo maxay ahayd xumeeyey ee fiidiyada ka qabtay walaalkeen cali cadaawo sheegayay ee maxay ahayd afarta ahaa u taga maxaad wiilkan dhalinyarada ah ee maxay ahaydana wanaajiyay gabadha aad ugu soo riixaysan fursada waan ku soo celiyay muxuu gurceel liba kala kala naag waa wareejina kala dibaasina kala goyso dhawaad de si sharaf loo u raadsadaa haddii ula sheekaysana inta sheekada jirta behind the scene buu ka shukaansadaa laakiin ninkan gabadha isku dhadhejinahayo oo dhahayo waxaa weeye oo hooyadooda xataa warow igaarkayo gabadheeda maxaa ka aga haysa iyadoo la ku hayo waxaa weeye gabadha xalow aad arkaysaa familkeedii uu saarto oo la hadlay waad arkaysa horta ninkaas waxaa haddana qolku uu soo qabsaday ummadda Soomaaliyeed waa la wada dhageysanaya u malayn hadalkiisi markuu qaylinayo dagaalamahay inaad ninkaas gabadha uu xoog ku haysto way iska caad gabadha xala markii la caawinahayna sidii ciyaalkii u hadlaysan waa dhageysanay xala qof xoog lagu haysto uu ekay dhowr goor bay ka soo baxday muudka markii ka soo baxay la malay inaan gaar ma laga yaabaa kolba qof gadaal wax looga sheegay amal hal malay inaan gaar sababtoo gabadhu wax ummadda Soomaaliyeed siinayso way qaadan lahayd shibay dhihlay iska aamus lahayd si caadi ah deganaan u fadhiisan lahayd farxad baa ka muuqan lahayd gabadha xala lacagta ku dhacaysay ma faraxsaneen thank you abo thank you gabadha ma faraxsaneen kolba markii lacag lagu dhufto way soo bood hal milyan magaari doona 600 markii mari leeyahay 1 milyan magaari doona 500 markii maris waxay leedahay 1 milyan magaari doona milyan markii gaarto waxay leedahay milyan 500 magaari doona ilaa 2 milyan markii doona mahad celinayo oo qof ummadda Soomaaliyeed u mahad celinayo oo naaga dacaan intaas oo ummadda Soomaaliyeed 1 milyan sabta ku xiran tahay si fiyobi ah gabadh u sheekeynayso u faraxsan maysan ahayn fiidiyada la duubana waa aragtay ninkiina halkaan uu soo qabsada marka ninkaan uu tuug yahay oo gabadha haysto oo wax cad way taas ninkaan tuuga yahay magafa yahay haysto gabadhan wuxuu ku haysto lacagta xalal loogu ciyaar u qaatay oo gabadha wuxuu ku haysto wax cad way marka sababa gabadha Soomaaliyeed ninka looga ani soo celi wax rabaa xorriyadeeda ay ku heli kartaa gabadhaas si walba oo xorriyadeeda ku heli karto Itoobiya maadaama ay مد جناني انا سبحان الله إيكها صوت قبيل إيش هو سجال بس تيجي كبوا عن سجال dadku badina u soo gaabiyo iga baxa dadku badina u soo gaabiyo iga baxa marka waxaan ku cadiyin waxa weeye caawa qolka daahir cali suwan suulina wuxuu keenana waa ogaanayna hadii uu keena gabadhaas uur leh warqad xaqiiqa inay uur leedahay cadaynayso hadii uu keena ninka inuu laba baasaboor leeyahay maxaa daba dhigay intaas oo ummada way badan tahay weyna joogta Itoobiya ninkan wuxuu daahir cali u xushay oo uu leeyahay gabadha uur buu u yeelay laba baasaboorna uu wata isagoo qabin uur buu u yeelay xalana qolkeeda meel kasta oo gabadha looga hadlay kaamirada ka dhex muuqanaya ninkan inuu daalin yahay intaas ummadda Soomaaliyeed u cadaynayso sababtoo nin kale Soomaaliyeed lama arko kuwa hadda Kenya aad ku sheegaysa lama arko oo kaamira ka dhex muuqdo qof kale Soomaaliyeed ku dhagan ma aragno ninka gabadha hadda kullamaan ee xooga u ku haysta waa ninka caatada ee halkan ka degay ninkan hadii Itoobiya sharci ka jiro an sharciga lala maro gabadha Soomaaliyeedna laga furo way waa hadalka cad xaqiiqada nimanka kale oo qabiilka ku difaacay hadda anaga reebel nahay iyo kaasaan nahay iyo ninka laan dheera way iyo
waxa ma shaqeeyaa ninka hadduu laandheeray yahay gabar Soomaaliyeed ma dhibaato iyo ninka hadduu laandheeray yahay gabar Soomaaliyeed ma gafanimo uma qabsado qofka markuu inuu gumeed yahay buu gabar Soomaaliyeed dhibaateeya gabdhaha Soomaaliyeed in la dhibaateeyo xaq uma lahayn in waxa weey la caawiyo oo la garab istaaga bay xaq u waan soo gaabana qofkii ninka ragga waa ninka gabar Soomaaliyeed u hiliya garab istaago u gargaaro caawiyo ninka hadduu gabadhan Soomaaliyeed inuu dhibaateeynay ay sax tahay waa inuu gumeed sharcigaana la marsiin qabiil cid ku difaac دولة Turkey has a warrant out for his arrest. Turkey had they saw قبطان ولا حرايا. That's why she can't go back to Hamad. Because Mogadishu and Turkey have close political ties. هدي حمر تكتو دم على قبنايا which makes sense hotel كدار على صوتو قاعد صدق بتكتين hotel قلادرو hotel كعرّن يا جالس بتوع هدي لحالين قبل دان هدي لهي سنين من حرام هدي منك الرادين برانك الريت واي لكن أدوك برانك جيست منك كروج يركع وعطها لعبته هيست قف سومالي وهيست مرة هيست مجتمع أنا سيدا صاش عمر ويسا إن أردت ما يجيب ولا مقلاسو معه وحن فيش صورة أنا سوى عمرنا كسعة نيو هرت الشيء كذا إلا شلي إلا درات وحي دعي أبي باودتين إن دب لوجن لابت مهمان هدي دور قضب عن دول استاجو يوحى هاد عد وحويان هرتا ويل كان رير كيسة أما سمرون إد هيستا يعد سمرون كودكن ينن رير كي إن كان رير كيسة هيستا هوايراتين مجرتو سو دادك هرتا shalay toole live kii bilaabmay 55 faar oo kala hadal baa lagu arkay maruu yiraahdo guriga waan ka soo tagay meel xaafad kale jooga at the same time cadaateen oo xaafada joogo maruu yiri markii dad loo soo diray hotelka lagu soo qarqaraacay ee la yiri banaanka u bax hadallo laha qari maxaasa igu galaysaa markii meeshii hadan hotelka laga saaray yani there is so many points to shush gelinaya wiilkan anagu ma naqaano wuxuu yahay ma naqaano waxyaabahan soo baxay backgroundkiisa waa gooni annaga isaga ma haysano annaga waxa u baahanahay wiil markuu goorasay locationkeeda nasiya la yiri locationkeeda waa la diiday markii hadana markii dambe maxaan ku qof baa loo soo diray way ogolaadeen wuu diiday markii dambe gabdha caan ah oo sharaf leh oo la yaqaano baa arinta galay oo maxaan ku raada hodan iyo xigta iyo ay kamid yihiin wiilkii bay inantii ka kaxeeyeen gabadh baa gurigeedii la geeyay gabadha gurigeeda markii la geeyay still gabadha wejigeeda iyo reactionkeeda iyo body languagekeeda markaa fiirisid waa dareemaysaa inay wax badan khaldan yihiin inta markaan isku ogeyn aniga waan la hadlay waxaan la hadlay inantii ay la joogtay iyo iyada waxaan isku heshiinay oo aan xal ku balanay oo aan ku wada hadalnay gabadhan bari markuu waagu bariyo in ay gabadhani maxaan ku raada family-geedii lagu wareejiyo Muqdisho aado oo ay baxdo wax horta jacayl la yiraahdo meeshan ma jiro way jecel yihiin oo aroosiya iyo uu guursanayaayo oo runtaas أنا واحد مثلا هاي شركة أنا واحد كسر جواب بسا أو شركة أنا كم مسحنا أو ويل كاسير كيس فاملي جسنا أي عارف تاني
clean ay ka noqonaysaa oo waxaan tushuush iyo shaki jiro dhan ay ka baaba'aysaa inanta inaadeer airportka noo geeyo tigid u jiro noo geeyo xalay markaan wareysanay askeeda waxaan ku leeyahay xaggee rabtaa inaad joogtid Nairobi baa rabtaa inaad ku noqotid maya Ethiopia rabtaa inaad joogtid maya xaggee rabtaa inaad aadid Muqdishaan rabaa askeeda ka tiri intaasoo kunoo Soomaali baa daawanaysay haddaba annaga waxaan ku qancaynaa oo aan u baahanay waxa weeyaan walaalayaalow gabadha intaad tigid u jartaan lacagtii tigid ku jiraysana way haysataa ha baxdo ha aado Muqdisho haddaysan aadin oo aysan bixin oo aysan Muqdisho tegin oo still meesha joogto Soomaaliya waxa ogaataan gabadhaas ha ka seexanina ha ka harina hadday 30 days qaadanayso hadday 90 days qaadanayso haddii forever qaadanayso ilaa gabadhaasi magaalada Muqdisho ay tegayso oo ay ka soo baxayso keeskeeda ha ka seexanina waxbaa jira u dhib xiddigta أنا سوي حديقتا سينينا حديقتا سيدا maya anas baan rabaa inaan su'aal weydiiyo anasow ma maqlaysaa kaasi good information كان وجه الله خلقوا هذا الأغنية hal su'aal baan weydiinayaa waxaad ogeyd adiga iyo gabdho meeshan la yaqaano oo caana oo walaala saalixa inaad gasheen arinta ood kool ku wada gasheen ood gabadha intaad kaxayseen aad reer geyseen soma maya anigu ma kaxaynin hal ma Soomaaliya dhageysta 8 kun oo qof may waxaan ku weydiinayaa inaan clear gareeyo ii kaadi please aniga I want to clean my name waska bariyaali waxaan rabaa su'aasha hadalkii ugu hore ku bilowda rabaa inaan saxay ii kaadi please su'aasha 8 kun oo Soomaali baa ku joogtaan markhaatina waa ka tiin gabadhaasi meesha laga kaxeeyay iyo meesha la geeyay iyo gabadha lagu wareejiyay iyo cidda ku wareejisay iyo ina anigu ma ogeyn shaqana kuma lihi lamana shaqaynaynin lamana ogeyn shaqana kuma lihi marka meesha kaliyan anigu aan ka soo galay waxa weeyaan inanta markii la wareejiyay ka bacdi oo xidigta iyo dhammaan iyo hodan oo qolka maxkamadda saaran oo la yiri inantii waa la wareejiyay waxa la geeyay maxaan ku rahdayay inan baa lagu wareejiyay inantii baan hadda kugu soo xiraynaa markaas baa xidigta waatana waa markaad beenaale markaatigiisa fogeeya markaas baa xidigta iyo hodan iyo aniga iyo inanta loo geeyay iyo maxaan ku rahdaa iyo maryano laygu dhibay layla hadalsiiyey laakiin wareejinteedii iyo cidda lagu wareejiyey iyo qaabka gabadh waxay tahay iyo waxaas anigu shaqo kuma lihi I want to clean my name taas waanu kula fahanay weydiina inaad raaysiiso su'aal baan weydiinaya wiilkan hadlaye horta waad islaamaya dhammaantiin waad islaamaya isugaan jaamaco ha su'aal baan horta ku weydiinayaa maxay ahayd adigan ku weydiinaya ana soo horta su'aal maxaa ku dhacay gabadha xidigta hadlaysaa la tuuray لا عيد ما توري تسوق اوكي ما هو هل سؤال فيريا سوق بحدك سوق انتوا مقنعوا يا هل سؤال شكله أنا سوق المدة كويديني عادي واحد تاين عتي إن أنت حالي وكوسو حريري ماشى نبيني أنا إيه هذا بكوسو حريري سببتها هذين قبل بحر أهين وأنا لا هذا سببتها أروح عاوز حالي سقدي بحمر كأنا جنوع